soonka markii uu yimaado waxa jira kuwa tuuga ah oo soonka ajarkiisii qofka ka bililqaysta oo weerar ku soo qaada oo ka qanimaysa ayaa jira waxa ugu horeeya telefaz telefisyon haddii guriga ku yaalo waa musiibo la isku soo diray xasanaadkaaga iyo ajarkii aad shaqaysan lahayd oo dhan buu ka xiraya markaas wuxuu ku dhibayaa aflaam musalsalaad xariir ah oo aan kala go' lahayn dad badanna waxay sameeyaan xilligaasayba soo dhigtaan telefisyoonada oo guryaha ay soo xiraan oo waxay yiraahdaan ramadaanka ayaan isku mootinayna subhanallah bishii la rabay inaysan saacadi ka khasaarin ayuu wuxuu soo dhiganayaa inuu waqtigiisa dhan ku dayaco aflaamta musalsalaadka inuu fiirsado mid kale jiro asaguna xadaya qofka acmaashiisa baabi'inaya waa suuqa oo la aadahayo oo qofka aan waqtiga uu siinayo uusan u xadidnay maalkaaga iyo dhaqaalahaaga uu salfanaya waqtigaagina waa baabi'inaya xanaaq iyo dambina waa kala kulmaysa qayla dhaan waa kala kulmaysa beecaagu inuu xaaraan noqdo dhici karta saaka saa u aad galabta waxaad imaanaysaa adoo sifri liyadayn ah wax xasanaado ku diiwaan galay aan la arag dunuubta iyo dambiyadu ay kugu socdaan waxaa kamid ah kuwa qofka soonkiisa fasaadinaya mobilkaaga caalamkii oo dhan halka ka daawanaysid waxaa laga yaabaa saa markuu qofku u taabto u furo dambiyadu inay ugu soo hoobtaan sida dhibicda roobka inay markiiba ugu bilowdaan hawdka qolkaanu galaya kanu galaya kanu u sii dhiibaya kanu daawanaya kanu fiirinaya ishiisuba wax ilaahay raali geliya ku dhici mayso dhagihiisu wax ilaahay raali geliya ku maqli mahayaan qalbigiisi waa madoobaan dambiyadii baa ugu socda maalinkii ramadaanka sidii dhibicda roobka ugu da'aya saasuu bilaabay la bilowday markaas wuxuu qaadanayaa saacada dheer ku baabiinay waxa kamid ah asaar dhafarka habeenkii la dhafrayo 5 saac iyo 6 saac waxa arkaysa kuwa turub dheelahaya kuwa habeenkii ku sugahaya ilaa saxuurta inay isku madadaaliyaan ilaahay macsidiis iyo caasintiis kuwana gacmaha taagayaan salaatul leel iyo tahajjud bay ku jiraan ilim baa ka qubanaysa oo ka daadanaysa inna sa'yakum la shatta gurigan waa laga ooyayaa gurigan ku dhaganna waa laga dhafrayaa saxuurtii baa lagu suganayaa telefisyon iyo mobile iyo ciyaar iyo sheeko kanna waa laga ilmaynayaa inna sa'yakum la shatta a'maashinu ilaahay wixii way kala tagsanta wala layaal amalkaani waa bil sanadka dhan bil bukaya sanadkii hore kuwii nala joogay imisa tagtay oo maanta dhulka ka hooseeya oo aynan suurtagal u ahayn inay intaas oo kale oo khayr ay sameeyaan aynan suurtagal u hadduu awlaad fiican ka tagay laga yaabo inay u duceeyaan waxuun inay u sadaqeeyaan laakiin shalay faraxsanaa jamaacada masaajidkan kamid ahaa maanta dhulka ka hooseeya hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ka badan way oo xaqiiqo ah haddii ilaahay maanta adiga ku gaarsiiyo aad xaadir tahay imisa soonku u dhashay ayagoo jooga oo maanta waxa weeyaan guryaha yaala isbitaalada yaala oo soondadaasi ku xiran tahay oo neefti loo raadinayo sidaas waxa weey naqsiga ka xiran haddii laga qaado la leeyahay waa go'aya bishii way soo gaareen wayna soo haleeleen laakiin maxay ku soo haleeleen xasanaadkii iyo ajarkii ay kasban lahayn ma hayaan فيا أيها المسكين قفك مسكين كأ وما أنت إلهي عافماد وسيي وما أنت هل كان سوق جاري وقت كوهري متقاند هذا ضدك ترب يقول ما نهيا قبوره مع المها وكبد دلين سيدي هوري ضدك التجيل بقى يصدح معها أو وربحين تانا قصينا هيا مال كستو قبوره عكوية على نوع كسته وحلوق جبرية هاي سيدي سوق بكارها كلا أيام ميدتك ويالا بل meelaha qaarkood waxay ii sheegeen dad xogaal ah inay ku leeyeen qabriga ma qodi karna adigu qodo ta ku daalan dadka xaafad aan laga dhiman way yarta maalin aameedna loo soo sheegayna wuu yariyaa dadku waxay u tagayaan tarab bay u dhimanayaan cudurkaana arkaysaani waa faafay xaqiiqo weeyaan inuu faafay oo muuqdo wax la dhaha laga qarsan karo la inkiri kara ma aha
inta ka caafimaad oo ka kacday baa wax badan ka badan oo ka badan oo ka badan in badanna way u tageen ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmad ayuu ka leeyahay maanta oo ramadaana dad badan inay jiran yihiin kuwa badani waxa weeyaan dhulka ka hooseeyaan kuwaan la soo gaarsiiyay iyagoo caafimaad qaba ilaahay xikmad buu ka leeyahay ilaahay intaan ku shukrino oo ku shukrino oo ku shukrino waxa weeyaan bisha aynu ilaa shanna fadliga iyo khayrka ay leedahay aynu ku didaalno